بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan salaamayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadiisaba ku nool. Caawa ay bisha Oktoobar tahay 7 waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago dhowr qodob. Qodobka koowaad, golaha wada tashiga qaran waxa uu soo qabtay ama uu soo yeeshay intii aan xilka joognay 9 kulan. kulamadaas dhammaantood waxaa ka soo baxay go'aamo muhiim ah oo lagu xaqiijiyay himilooyin waaweyn oo la xiriira midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, amniga iyo dabargoynta kooxaha khawaarijta ah, horumarinta iyo dib u habaynta dhaqaalaha, kor u qaadidda adeegga bulshada, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, garsoorka iyo cadaaladda iyo dib u eegista dastuurka. labadii bishan Oktoobar ee aan ku jirno ayuu furmay kulankii 10aad ee golaha wada tashiga qaran. waxaana lagu soo bandhigay ajendayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta dalka, dib u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed, iyo arrimaha doorashooyinka dalka. haddaba waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo shirkaasi weli waa socdaa. madaxda ka soo qayb gashay shirka ee sharafta leh waxay ku jiraan la tashiyo la xiriira qodobada qaarkood oo muhiim ah. marka ay la tashiyadaasi dhammaadaanna waxaa la soo saari doonaa go'aamo iyo warmurtiyeed. waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed guul. shirkana insha Allah tacaala wuxuu ku soo dhammaan doonaa ama ku soo gabagaboobi doonaa guul ayuu ku soo gabagaboobi doonaa insha Allah. intaas marka laga tago waxaan rabaa inaan u caddeeyo mar kale dadka Soomaaliyeed inay naga go'an tahay ilaalinta midnimada, gobnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed, ilaalinta karaamada Soomaaliyeed, iyo inaan ka fogaano wax kasta oo keeni kara kala qaybinta dadka Soomaaliyeed. waxaa naga go'an in dalka horey loo wado oo aan dib loo celin, hadday noqoto siyaasadda iyo hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto arrimaha bulshada. maanta meeshaan marayno waa meel wanaagsan. waxaanan naga go'an inaan horey u soconno oon dalka hormarino. waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan kuna taageeraan dowladda Soomaaliyeed in horey loo socdo oo aan dib loo noqon, in laga shaqeeyo midnimada, in laga shaqeeyo wada shaqaynta hay-adaha qaranka, in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, iyo in la walaaleeyo, iyo in la soo afjaro khawaarijta dalkeena dhibaatada ku haysa, si aynu ugu noolaano dalkeena karaamo, xorriyad iyo cadaalad.